ka xoroobaan waxay keentay qaran marka qaranna macnaheedu waxa weeye waa haybad iyo sharaf iyo mansab iyo maamuus qof walba oo Soomaali ah adduunka laga yaqaan magaciisa meel alla meeshu tagana ee sharaf iyo soo dhaweyn iyo karaamo uu ka helo waxaana lagu gaaraa wadaniyad waxa lagu gaaraa midnimo yaa lagu gaaraa muddadii aan intaas haysanay waad ogtihiin Soomaaliya kaalmaha ee adduunka ka galeysay iyo meelaha muhiimka ee adduunka uga jirtay iyo qadarinta iyo sharafka iyo karaamada ee adduunka ku lahayd waxaana intaasna gaarsiiyey waxay ahayd qarannimo iyo lagu raadiyo wadaniyad maaha qabiil ma ah maxaa yeelay markii aad qaran raadinayso waa inaad wadani aad tahay oo aad ka hadlayso dalka oo dhan kan ku gumaysanaya ama kan raba inuu hoos ku dhigo kuma imaanay hadaa qaran tahay laakiin waa ku haweysan hadaa qabiil tahay maxaa yeelay gumaysigii halkan imaanayay naftigoodu haddii Soomaali qaran ay ahayd ama qaran ay lahaan lahayd ma aysan imaadeen laakiin waxay ogaayeen Soomaali inay qabiil